الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد halkan aanu hadeer joognaa waa magaalada Booda Cadde oo runtii magaalada Ceergaabo koonfur kaga beegan qiyaastii ilaa 130 kiiloomitir runtii sida aad indhihiina ku aragtaan ujeedada safarka iyagu wuxuu ahaa ilmahan yar ee dhiban ee runtii arinta mucjisada ay ka muuqato inaanu soo booqano anagoo runtii ka soconna hay'adda magaceedu yahay Somali Development Association oo Soomaali ahaan noqonaysa hay'adda horumarinta iyo ka qayb qaadashada arrimaha khayriga runtii hay'adda magaceedu wuxuu ku yaalaa boorka oo waxa weeye iyada ku sii dheeraan maayo runtii sida ilmaha aabihii uu ka waramay ilmaha dhibaato badan baa ka muuqata xanuunka ugu badan wuxuu ka asiibay madaxa sida idin muuqata ilmuhu hadeer wuxuu jiraa muddo 6 sano gaadhaysa isagoo bilay yar jirana xanuunku waa asiibay xilliga uu yaraa runtii iyana meesha dhinac socotay hooyadii oo isla waqtiga xanuunsantay oo miyirkii ka tagay ilaa iyo haddana waalan runtii xilligaas waxa dadkii deegaanka ka dhawaa ay runtii dadaal u sameeyeen in ilmaha bal dhakhtar la geeyo wax la geeyo wadanka Itoobiya xilligaas sanad meelahaas uu jiray Itoobiya hadii la geeyay madaxa waxa laga sameeyay qalliin sida aad aragtaan madaxa tuuba laga geliyay ilaa caloosha lagu xidhiidhiyay dhakhtarkii wuxuu ku tala bixiyay muddo 5 sano kadib in la soo celiyo si markaa loo jeegarayo ama wixii markaa looga qaban karo looga qabto runtii sida aad aragtaan ilmahan dhibaato badan baa ka muuqanaysa Soomaaliduna wuxuu ku maahmaahdaa war indhaa dhaama runtii familka uu ka soo jeedo ilmahan yari way awoodi kari waayeen inay goob caafimaad oo runtii ilmaha kan wax laga qaban karo inay gaarsiiyaan waxa iyadana taa dhinac socota saan hore idinku sheegnay ilmahan yar hooyadii dhashay iyana way waalan tahay way xidhxidhan tahay waxa kale oo ugu sii darsantay duruufaha soo dhan gurigii hooygii yaraa ilmahan lagu hayay waa guriga hadda idin muuqda oo dhamaantii intuu dab qabsaday uu shuf beelay wax uga badbaadina haba yaraatee ma jiraan sida daraadeed dhibaatada idin muuqata annaguna aanu maanta indhahayaga ku aragno muslimiinta aan u soo gudbin doonana waxaanu u sheegaynaa oo la socodsiinaynaa ilmaha yar runtii wixii loo qaban karo in loo qabto oo la isu magaranaysaa kaashado waayo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka waramay sadaqadu inay shay aad iyo aad qaali oo ay tahay waxaanu garan karnaa ama aynu ognahay in badan oo runtii dad islaam baynu wadanahay diinta wax badan baynu maqalnay axaadiista iyo mucjisooyinka iyo qisooyinka ay sadaqadu xambaarsan tahay nabigu way nooga waramay haddaan dhowr 2-3 qiso soo qaato waxa weeye sadaqadu horta waa ta koowaade maalka ma nusqaamisa nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiis saxiix ku sheegay maalkaagu wuu lama laabmayaa waxa weeye wuu tarmayaa halkaad ka soo saartay wax ka khayr badan ayaa ilaahay kuugu bedelaya wuxuu ognahay xadiiskii caanka ahaa ee nabiga sallallahu alayhi wasallam laga soo wariyay Aisha xaaskii nabiga radiyallahu anha maalmaha kamid ayaa iyada oo sooman ayaa waxa u yimid nin miskiin albaabka soo garaacay way soomanayd gurigeedana waxa yaalay 2 xabadood oo kimise gabadhii shaqaalaha hood bay tiri ka fur waxay tiri way soo jawaab celiso waxay tiri nin miskiina taagan wuxuu leeyahay waxaan cunay siiya waxay tiri kimista xabadsi dabadeedna cabaar kadib waxa soo garaacay qof labaad oo miskiina haddana sidii leeg xabadii labaad ayay tiri gabadhii shaqaalahayd waxay ku tiri si gabadhii shaqaalahayd waxay tiri waad sooman tahay maxaad ku afuraysaa waxay tiri ilaahay baa wax ka weyn keenaye si labadii midha kimista ha 2 miskiin oo kala duwan bay siisay ilaahay wuxuu qadaray oo aynu maqalnay cabaar kadib waxa gurigii soo garaacay
qof gabadhii shaqaalahayd baa ka furtay dabadeedna waxaa loo caasho loo keenay oo labadii midha kimis ahaa ilaahay ugu soo bedelay neef dhan oo muufaysan iyo intaasoo khubus ah halkaa waxaanu ka garan karnaa sadaqada waxa meesha aad ka soo saartay in 1000 jeer ka badan ayaa ilaahay kugu bedelayaa waa dhinaca maalku inuu laba laamayo halkaa ka garan karnaa qosooyinka ka waramaya sadaqadu way badan yihiin waxaan kaloo ka waramayaa dhinaca mucjisada ama dib kugu soo socota in ilaahay kaaga xijaabayo maba fogo oo wadanka khaliijka ka dhacday saan filayo waxa dhacday nin sheekha ayaa suuqa u soo baxay dabadeedna wuxuu damcay inuu taxi raaco taxiga inta badan dhowr qof baa kireysta dabadeedna intaanu taxigii raacin waxa uu yimid ilmo yar oo gaajaysan wuxuu ku yiri sheekh gaaja ay heesa waxaad siisaa 5 riyaal aan maqaaxida ku tago sheekhi 5 riyaal buu siiyay ilmihii yaraa intuu farxay ayuu maqaaxidii la galay sheekhi dabadeedna waxa walwal ku abuurtay ilmaha dhibaatadan iyo duruuftan ka muuqanaysa sheekhi hawshiisii uu iska sii watay wuxuu raacay taxigii isaga iyo 3 qof oo kala saarnaa iyo ninkii taxiga waday dabadeedna cabaar markay socdeen baa ninkii taxiga waday sheekhi maagay waa aflagaadeeyay wuxuu yiri warigada gaariga iga deg sheekhi waa iskaga degay meesha mucjisada soo socotay waxay noqotay gaarigii markuu cabaar socday ayuu gaarigii intuu gadoomay 3 qof iyo dareewalkii 4 meesha waa ku dhintay sheekhi wuxuu gartay arinta ilaahay musiibada uga badbaadiyay ee sababta u noqotay inuu badbaadaa inay noqotay sadaqadii uu siiyay ilmaha yar runtii waxaanu garan karnaa sadaqadu waa shay aad u qaali ah qof kasto islaamahana waxa laga doonayaa dhibaatada iyo runtii qof kasto islaam oo dhiban inuu ka qayb qaato runtii ma jecel inaan sii dheerayo ilmaha yar ee dhiban ee la midka caruurteena sida aynu u jecelnahay ilmaha aynu dhalnay dhibta haysata inaynu la qaybsano in meelba meesha ka wanaagsan tahay ama dhakhtarka ugu wanaagsan aynu u jecelnahay inaynu u geeyno inaynu reerka dhibto haysato aynu ola qaybsanaa loo baahan yahay maalkana waxa ka anfacaya waa waxa aakhiro u soo hormarsatay oo akoonka aakhiro kugu dhacay runtii mar labaad waxaan ku adkaynayaa muslimiinta daawan doona fiidiyowgan ilmaha dhibaataysan inay u kacaan ilaahay dartii u soo caawiyaan ilaahay isaga caafimaadka haya ilaahay caafimaad baynu uga rajaynaynaa intaasaan ku soo koobayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh